uu hal abuuray Maxamed Cawaale Liibaan 12 Oktoobar 1954 midabkiisa saxda ah caalamku si kala duwan ayuu u arkaa xitaa muwaadiniinta uu sumadda u yahay ayaa qaarkood si qaldan u fahansan midda kale ee yaab kale ayaa ah ciidankii difaacayay in asigoo aan sidan midabkiisa uu garabka u suran yahay tusaale ciidanka tababarka loogu soo gabagabeeyay Turkiga waxay siteen calanka Soomaaliya oo aan lahayn midabkiisa saxda ah marka aad Google-ka weydiiso calanka Soomaaliya wuxuu ku soo saarayaa asigoo sita midab aan ahayn midabkiisa xitaa waxaad ku arkaysaa warbaahinta caalamku adeegsanaysa asigoo aan ahayn midka saxda ah ee Soomaaliya sumadda u ah ma jiro calan marka aad Google-ka weydiiso ku soo baxaya asigoo aan sidan midabkiisa saxda ah laga yaabay inuu ku soo bandhigo marxaladaha iyo heerarka uu soo maray calankaas burburkii kadib siyaabo kala duwan ayaa loo daabacay calanka loona sameeyay waxayna dadku noqdeen kuwa iibsada maradii buluug ahiba haddaba waa kee midabka saxda ah ee calanka Soomaaliya midabkiisa saxda ah wuxuu ku xusan yahay heesta loo qaaday ma ahan midabkiisa buluug rasiin ah balse waa mid cirka oo kala ah inteena badan waxaan aaminsanahay in taariikhda iyo sooyaalka qoraalka farta Soomaaliga in ay ku kooban tahay dawladdii kacaanka waa sax waxa la hirgeliyay 1972 laakiin qoridda farta Soomaaliga waxay leedahay taariikh dheer oo ka horeysay dawladdii kacaanka 1920 ayay ahayd markii la soo bilaabay hindisaha qorista rasmiga ah ee afka Soomaaliga ilaa xilligaasna waxaa lagu taamayay in si rasmi ah loo qoro rag badan ayaa dadaal sameeyay oo la yimid halabuur sida Cusmaan Yuusuf Keenadiid oo soo saaray 1922 far lagu magacaabi jiray Cusmaaniya waxaa kaloo kamid ah ragga dadaalka sameeyay Ibraahim Xaashi Maxamuud iyo Xuseen Sheekh Axmed Kadare ayagoona soo saareen qoraal farta ah 1950 ilaa 1960 waxaa socday dood ah sida loo qori lahaa af Soomaaliga waxaana laga doodayay in Carabi ama Laatiin ahaan loo qoro 1 Juulaay 1961 markii uu dalka xorriyadda qaatay waxaa la soo bandhigay dhowr qoraal waxaana ka mid ahaa farta Shire Jaamac Axmed oo Laatiin ahayd iyo faro kale tani ayaana timid kadib markii ay dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan ay soo saartay guddi ka soo baaraandega qoraalka farta Soomaaliga guddigaasna waxaa xubno ka ahaa Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal oo gudoomiye ahaa Yaasiin Cusmaan Yuusuf xubin Maxamuud Saalax Ladane xubin Ibraahim Xaashi Maxamuud xubin Khaliif Suudi xubin Mustafa Sheekh Xasan xubin Shire Jaamac Axmed xubin Xuseen Sheekh Axmed Kadare xubin iyo Yuusuf Meegaag Samatar oo ahaa xoghayn 1961 waxaa dhacay mudaharaadyo looga soo horjeedo in farta Soomaaliga laga dhigo Laatiin ayadoona masaajidda xitaa laga diidanaa arrintaas waxayna dadka lahaayeen Laatiin waa laadiin yacni Laatiinku waa diin la'aan guddiga la soo xulay waxaa 1961 la soo hordhigay 11 farood oo luqadda Soomaaliga lagu qori karo isla markaana alifeen aqoon-yahano Soomaaliyeed laakiin guddigan waa ay socodsiin waayeen hawsha waxaana hareeyay muran iyo khilaaf maadaama ay guddiga ku jireen rag soo hindisay far isla markaana uu doonayay in nin walba fartiisa hirgasho waxayna dib u dhac arrintaasi ku keentay in la qoro far Soomaaliga waxayna fikraddan soo noolaatay markii uu dalka la wareegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre 20 Janaayo 1970 waxaa la dhisay guddi afka Soomaaliga oo ka koobnaa 24 xubnood oo isugu jiray xeeldheerayaal afafka ah iyo laba la taliye khubaradan iyo golihii sare ayaana ugu dambeyn go'aamiyeen in la qaato farta Laatiinka ee Shire Jaamac Axmed guddigan ayaana la kulmin mudaharaadyo iyo isqabqabsi ayagoona ku guuleystay in la qoro farta Soomaaliga waxaana dawladda ka soo baxay 1972 qaraar sheegaya in afka rasmiga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya uu yahay afka Soomaaliga ee Maxaatiri isla markaana la qoray farta rasmiga ee afka Soomaaliga af Soomaaliga waa luqad Kushiiti ah kana tirsan dalada weyn ee Afro-Asiatic language waxaa ku mideysan 300 oo luqadood oo looga hadlo galbeedka Aasiya waqooyiga Afrika iyo geeska Afrika